badhasabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo badhasabka xigeenka gobolkaasi Gabiley Cali Casi ayaa maanta kormeer ballaaran ku soo maray asayidada xoolaha ee magaalada Gabiley socdaalkan oo ujeedkiisu ahaa sidii ay wax uga ogaan lahaayeen saameynta ay roobabkii gugu ku yeesheen sixirka xoolaha ugu horreyn waxa socdaalkan uga warbixiyay barnaamijka dadka ka ganacsada xoolaha magaalada Gabiley ee sayidada xoolaha lagu iibiyo sidaan hoos taagan oo kale 300 iyo waliba googa weyn han hoos taagan walanka dhaxay 850 ilaa 900 weyn aniga dabaaxi 600 buu leeyahay 650 buu leeyahay 500 buu leeyahay 400 buu leeyahay waa kol qiimihiisa 3 buu leeyahay qaar laga iibsanayo boqolaad jira kontanaa jira كنتنا كلام كنت مضي أريد أفهم مالي نف كنولي ونف كهروف اللصيو هو يأب وشيك اللصيو كيم كم ركده واي ولي حولي من نوران يا نف كيوري روك كيوري روك كيردن أيها السير تكساو كاتي كاتنا يجا كيوي حرور كيو وحال سيني حروف اللصيو في بالك هنا وليدوق حولو وشيء حصل شيء وليدوق حولو ما aysna waxa halkaasi ka warbixiyay badhasabka magaalada Gabiley Xamse Maxamed Cabdi isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxaan maanta ku soo maray kormeer sayidada xoolaha Gabiley runtii anagoo ku guurgalayna bal xaaladda isbedel ay u timaado roobku ku yimi xoolaha qiimaha sayidada markaas runtii waxa weeyaan wali wax isbedel oo ku yimi xoolihii ma jiraan wali waa sidoodii wali ma naqaysanin kastoo سيرتنا هذه الشيء حكيت شفتها أو حويان على جاركها هذه الشيء على كنا لأن فقط وجوه سبب هيروح هيستان وأنا نعرف إني قلت سلا هاي حوالي فقط هيستان وكان إن شاء الله بإذن الله وحكي شيئنا إنه ماركين حوالها إنه بركيو وإنه ناحيو وحايدنا نبشروا وقت بشير بدن نقولوا وأطباء الأمور ماركين waxaa muuqata in aanay wax isbedeli aanu ka imanin xoolihii uu weli qaatay iyo weli kasbixtii abaarta ay kasii muuqato marka insha allah sayidada loodana wuu siiyey waa Xamse Cabdirashiid Sheekh Diriis iyo Zalaan Maxamed Badi wallahi iska caalamiga bulsha TV magaalada Gabiley